kulanti wanaagsan wacan akhyaaray idlahaantiinba waa akhbaarta TV oo aalaaba idin la socodsiiya wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo bariga Afrika intaba. Taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa la filayaa inuu gaadho magaaladaasi Beledweyne maalinta Axadda ay ugu soo aadan. guddiga doorashada ee maamul goboleedka Hirshabelle ayaa shaaciyay jadwalka doorashada 6 kursi oo kamid ah kuraasta golaha shacabka ee Beledweyne, kuwaas oo uu kamid yahay kursiga la rumaysan yahay inuu tartami doono taliyihii hore sirdoonka Fahad Yaasiin, haddana la taliyaha amniga Farmaajo. haddaba waa su'aale maxaa kursigan hadal haynta weyn u yeelay? waxaa jira kiis loo haystay taliyihii hore ee sirdoonka Soomaaliya mudane Fahad Yaasiin, kiiskaas oo ahaa kiiskii Kraan Tahliil. haddaba haddii uu ku guuleysto maxaa dhici kara? waxaa la aaminsan yahay haddii uu ku guuleysto kursigan wuxuu helayaa xasaanad buuxda, waana kursi muujinaya jiritaankiisa nolosha siyaasadeed ee Fahad Yaasiin iyo waliba saameyntiisa siyaasadeed. warka ku xiga waxaan diiradda ku saari doonaa imaanshiyaha Fahad Yaasiin ee Beledweyne iyo maalinkaasi Axadda ah. annaga oo akhbaarta TV oo isku duuban waxaan kaga tegaynaa amaanaad leh.